wixii doonaha lagu sheegay Soomaalidu Koongareeska Mareykanka dhex fadhida laga saari karo dadka waa xaqiiqo jirta waxaan aad ugu faraxsanahay bulshada Soomaaliyeed horumarka ay caalamka sameynayso dabcan ayaamahan dooda Soomaalidu aad u xoogaysatay wixii doonaha lagu sheegay Soomaalidu Koongareeska Mareykanka dhex fadhida laga saari karo dadka waa xaqiiqo jirta marka qof xun halka ma gaari karo saan anigu qabo laakiin hadda siyaasadaha iyo marka kaambeynadu jiraan wax walba la isiraada wadankaasna waa wadan liberaalo hadda caalam kale way anu waxaan qabaa Soomaalidu arrimaha aysan ka caroonin ha u noqoto dhiiranaan laakiin waxyaabaha qaybtood oo lagu sheegana waxa la rabaa inaan shaqo guri u qaadano waxba ka jireen aan wax saxan khaasatan dalkeena runtii suuradiisu ma fiicna wuxuu u baahan yahay inaynan waxana laga sheegay wixii xun anagu ma qaadanin laakiin wax qaldan hadii aan nahay oo lagu sheego ka gilgilan meynay waxaan rabnaa inaan abaarno oo aan ka gudubno hadii Ilaahay marka insha Allah cusurka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo dadaal baa faran isku duubni baa faran buugaagtan waxaan rajaynayaa inay abuuraan doodo aqooneed oo cilmiyeed oo doodaha baraha bulshada ka socda ay tawjiihiyaan oo waji u yeelaan oo khilaafaadka siyaasadeed xataa inaan la huursaneyn laga wada hadlaan rabaa oo si furan looga si aan cay ku jirin oo ceebi ku jirin in loo wada hadlaan la rabaa maxaa yeelay waxba ku xalismaayo markii xaqiiqada la sheego xalka soo dhawaada marka waxaan aaminsanahay waxyaabaha hadda socdo waa waxyaabo hordhac u ah inay Soomaalida ka gudubto dhibaato badan oo muddo badan ay iska ilowsiinaysa marka mar rabo inaan ku dheeraado aad baad u mahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa book fair kuna waa noo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi